بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان daawadayaasha ku taxan boggayaga Facebook su'aasha maanta waa sidee baa loogu diyaar garoobi karaa tobanka dambe Ramadaan iyadoo dadkii bandow iyo xanibaad ku jiraan runtii waa su'aal soo noqnoqotay mudanna maxaa yeelay tobanka dambena in loo diyaar garoobo waa mudan yihiin duruufta lagu jirana dadka waa ku cusub tahay oo sidan oo kale oo toban dambe ma soo marin tobanka dambe diyaar garowgeedu kama duwana tobankii iyo labaatankii hore dhinaca duruufta hadday noqoto qiyaamu leylkii qayb hore iyo qayb dambe la tukado hadday noqoto in la ducaysto hadday noqoto quraan in la aqriyo wuxuu ku sii fiican yahay tobankan dambe dhowr arrimood oo qofka u kaalmaynayaa jira inkastoo waxyaabo la waayaya dadka qaarkii waayayaan ay jiraan waxaa la waayayaa jamaacadii dadka dhiiri gelinaysay dadka ictikaafka masaajkan fadhiisan jiray waa la waayayaa laakiin haddana dhinac kale ay leedahayoo imtixaanaadka dhacay dhib ma wada ah labay leedahay labadaa haddii la waayey labay duruuftani leedahay waa midda koowaadee cibaadadii qiyaamu leylka ah ee nabigu yihi man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min danbih qiyaamkii wuxuu ugu fadli badnaa guriga inuu noqdo nabi wuxuu yihi afdalu salaati almar'i fii beytihi ila almaktuuba qofka salaadiisa waxaa ugu fadli badan miduu guriga ku tukado waxaan faradkiiyo waajib ahayn raggaa laga hadlayay sidaa darteed salaada masaajka lagu tukanayay ta guriga lagu tukanayaa ka fadli badan fadliga qiimo kaleba leedahay oo guri ku tukashaduyo masaajka markaa ku tukanaysay waa daba taagneed waad iska dhegaysanaysa waa aamusnayd hadda laakiin haddaadan qur-aan xifdisanayn xataa kitaabkaagaad qaadan kartaa intaad la kala baxdo ama kitaab qur-aana qaado ama gacanta ku hay ama bahalkan dheer oo khudbooyinka marka la jeedinayo wax la saartay intaad hortaada soo dhigato kitaab weyn kula kala baxo warqaduun saa u rog adigiibaa qur-aankii aqrinaya saxaabadu qaar saasay jeclaan jireen ibnu cumar radiallahu canhu ardahu jamaacada lama tukan jirin keligii baa tukan jiray maalin baa la weydiiyo o la yidhi maad la tukatid marka iska aamusnaanaya u yihi sida dameer meel taagan maan afka tuuraya oo iska aamusnaanaya intuu qur-aanka la aqrinaya anigu maan akhriya falahu bikulli xarfin xasana way dhegaysigu ajirka intaa la eg ma laha laakiin maanta waxaad haysataa fursad qur-aankii oo dhanba aad ku akhrida tobanka dambe ood ku tukato habeenkii salaadaadii iyo soo jeedkaaga 3 jus akhri tobankaa beri khalaas wayba dhammaatayba 9 beri oo min 3 hal maalin 4 ka dhig halka maalin 4 ka dhigaysana aan kuu qishee maalinka jumcadaa ka dhigo oo suuratul kahfi ku aadi kol labaad akhrin lahayd maalinkaa ku aadiyo iyadaaba xisib ka badan xisbiya wax yar wey waxaan rabaa inaan iraahdo faa'iidada uu leeyahay waa in gurigii lagu tukanayo waa inaad jaanis u helaysa aduu qur-aankii aad akhrido salaaddii ajirkeedii iyo qur-aankii akhriskiisa ajirkiisi baad hesho wuxuu kaloo leeyahay dhammaanteen laynagu qasba in yar baa u nasan jirtaye in shaqooyinkii aan ka nasanno innagoo nasanna habeenkii soo galood maalintii marar seexan kartood nasanta midoo shaqaynaya oo ordaya oo kana lulaya kana laadlaadayaad iman jirtay habeenkii waxoogay markaad tukataa afkaad kala qaadi jirtay male hadda gurigaad joogtaa naso duurkii seexo barqadii seexo casarkii iskala bixi habeenkii adoo freesha ku yimaado si fiican baa leylatulqadrigana loo raadin karaa tobanka dambe leylatulqadrigii waa ku jiraa oo cuduradan iyo korona imanaya leylatulqadrigii ma xijaabayaan leylatulqadrigii tobanka dambe ku jirayna waa sidiisii waad u nasan tahay waxaa kaloo raggii maanta u taalaay xaaskoodii iyo ilmahoodii bay la qaybsanayaan dadaalkii iyo leylatulqadrigii raadintiisii reerka bar
weliba carruurtii waxbarasho ma aadayaan caawa dhan haddii la soo jeedo subax la kallihi maayo waa la wada seexan habeenkiiba soo jeeda maalintiina seexda duhurka agtiisa soo kaca carruurtuna waa kula soo jeedo mid aad qur-aan ka dhegaysato mid qur-aan akhriya kuwa qur-aan ku subciya kuwa aad keligood sheegtaan wax wanaagsan ka sheekaysataan maa weelo fiican oo cibaado ah oo habeenkii lagu dhammaystana wayba taallaaba marna wax cuna marna wax cabba marna cibaadaysta marna wanaag ka sheekaysta marna qur'aan iyo dikri akhriya marna wada ducaysta ma istiri intaa markaad maqashay war tobanka dadaalkoodu sidanuuba kaga fiican yahay sidii hore furaska jiraa ka badan furaska la waayey guryaha dayacmi jiray intii masaajid loo dido carruurtaa laga tegi jiray qofkii masaajidka gaari waayaa si uu tukada aan garanaynin adoo daalan baa habeenkii la iman jiray intuba malaha ha eegina maxaad weyday waxaad haysato ee fursad baa laisku fillaysiiyaa maanta haddaad u calacaasho kanaan waaye wax ma tarayso waxaad tahay iyo xaaladda aad joogto fursaddeeda iyo wanaaggeedaa la gartaa tobanka dambe dadaalkeedaan iska ognahay waa in la badiyaa fursaddan qaaliga ee la haystana inayna ina soo marin baa laga yaabaaye dadku dhammaan waa inay ka wada faa'idaystaan ilah waxaan ka barya subxana kuwa istaaga ee leylatulqadrigan ilaahay waafajiyo iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembihi laynaga dhig inaan noqonno ayaan ilaahay ka baryaa subxaanahu wa tacaala haweenka carruurta odayaasha qoysku ha loo diyaar garoobo haddaaban tacliim iyo wax lagu mashquulsan yahay jirin tobanka dambe in habeenkiina la soo jeedo oo la cibaadaysto maalintiina gelinka dambiya la yska hurdo oo ciwadkii laga dhigo xaggaas ha loo diyaar garoobo sidaa iyo khayr baa iska ognahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu